بسم الله الرحمن الرحيم مرة badan waxaan soo sheegnay in aan dadkana kula taliyay anigana iskula taliyay in la helo inaad heshid oo raadisid waxyaabaha aad cishqisan tahay inaad suubisid sababta aan taas u leenahay waxaa ka mid ah haddee nabiyullaahi daa'uud ayaa waxaa la yidhi wuxuu jeclaa shaqada biraha iyo waxaasuu teknolojiyada arrimahaasuu jeclaa marka arrin diinta waafaqsan waayo qofka inuu raadiyo wax uu jecel yahay camalan yuxibuhu diinta ku jirta waxaan raadinaynaa marka shaqo aan jecelnahay sababta aan u raadinayno maxay hadda horta sabab ma u baahna la sababta aan u raadinayno waxaa qofka shaqo uu jecel yahay markuu qabto waa uu ku noqonayaa marar badan waqti badan waa gelinaya hilow iyo farxad iyo waxba ku jiro wuu rabaa wixii uu sii sugaya marka uu taasa marka waxay kalifaysaa inuu ku noqdo taana marka sidaad wada la socotiin wixii lagu celceliyo practice makes people perfect waa kamaala laga gaarayo qofka wax ku fiicnaanayo shaqo fiican uu qabanayo marka loo barbardhigo qofka asagoo aan xiisahaas qabin hilowgaas qabin waqtigaas badan aan gelinaynin adaa uga sarreynaya marka shaqo fiican saasaad u qabanaysa wixii wax kugu adagoo isku khasbaysid ma aha waxaad rabtid inaad suubisid waay marka maxay tahay marka taa adigana waxaa iska tiri kartaa dalka duruufaha adag oo ka jira oo dee dhaqaale iyo siyaasad iyo arrimo kaleeto fara badan yani fakriga iyo gaajada iyo shaqo la-aanta iyo waxaasoo dhan door waxaad ka ciyaari kartaa muhiim adigana waxaa iska soo saari kartaa dalka iyo dadkana meelaad ka soo saari kartaa warkay ku fiirsa marka therefore marka dadaal weyn inaad la imaatid waay dadaal weyn inaad la imaatid waay saasha marka waxay tahay aniga baaritaankii aan galay waxaan ku ogaaday inaan ka mid ahay dad la dhihi karo kinesthetic dad garta dad wax garta marka waxaas wax barta tusaale ahaan soo barashadan ka soo qaadayna waxaan wax si fiican u bartaa markii waxaas aan dhaqdhaqaaq ku sawiran karo ama ku dareemi karo markaan dhaqdhaqaaq ahaan waxaas u dareemi karo markaas waxaan leeyahay war waxaan niyaho waa waxaas miya waan gartay marka hadday waxaas yihiin sidaani noqonayaan tusaalahaan kale qofka markuu hadlaayo hadalkiisa laba u dhacaya midna wuxuu noqonayaa mid oo aad lehayso war waxaan waxba kama jiraan naga dhaaf iyo mid aad dhehayso kan inay wax ka jiraan aan u malaynay marka si marka kay wax ka jiraan aan ugu dhago ya kan kaleetana aan isaga dhaafo waxaan u baahanahay inaan dhaqdhaqaaq ahaan ula socdo anoo baadi goobaaya mujeedaa marka dadka caynkaasa ayaan ahay fikraddii marka haddaanan aan socod ku raadinaynin ku goobgoobaynin isla markaasna aanan dareemaynin fikraddu igama dhaadhacayso si fikradda marka igaga dhaadhacdo waxaa lama huraan noqonayo inaan goobo si oo dhaqdhaqaaq ku jiro ujeedaa waa fahantaan u malaynaya dadka marka kinesthetic socodka duwarisa dadka noocaas oo kaleeta la dhahaa learning preferenceska markii laga hadla dadka qaarkood waxay yidhaahdaan there is no evidence for these kinds of claims caddayn looma haydhan laakiin caddaynta waxaa waaye adiga waaye tijaabadaas suubi haddii aad dadkaas adiga ka mid tahay markaa ka hadlayso isku day wixii inaad gacanta ku dhigtid inaad gacantaada la dhaqaajiso jirkaaga la dhaqaajiso socotid iyo wixii lamid dadkaasaan marka aniga ka mid ahay therefore wax allaali iyo wixii aan samaynayo inaan ku jaangooyo waaye socod ama dhaqdhaqaaq iyo dareen ereyga kinestheticna saasuu isaga saaran yahay midna waxaa waaye to put in motion in wax la dhaqdhaqaajiyo iyo sensation in wax la dareemo sensationka waxaa waa dareenka tusaale ahaan oo kale ereyga aesthetics wuxuu qaraabo leeyahay anesthesiada oo kaleeto markii ilaga lagaa saari rabo oo kaleeto dhankan waxaa waaye naam laga dhiga marka waxba kama dareemaysid laakiin waxaa halkan laga sarbiibaya qofka markuu socdo waa qof aan naam ahayn oo waxbuu dareemay therefore dhaqdhaqaaqa iyo waxaa xiriir ka dhexeeya iyo dareenka
therefore marka dhaqdhaqaaqaysid ood fikraddii aad motion gelinaysid waxay u badan tahay fikraddaas inaad dareentid dareenkaasna markaas aad ka fikirtid xeer kaleeto waxaa jira asagana la yidhahdo loop oo ah waxaad ka fikiraysaa wixii waxaa leedahay niyahow waxaan u malaynaa saas iyo saan inay yihiin kabacdi marka waxaad samaynaysaa waad tijaabinaysaa waxaa leedahay okay bal aan fiirino sida aan u malaynaya ma tahay mise ma aha tijaabo kabacdina markaas haddana markii aad tijaabada samayso kadib aad ayada waxaa leedahay dareenka aan kale saan u ahaa saan u malaysaanay ahayd waad ka fikiraysaa loopkaasaad marka aad isaga laablaabanaysaa waxaan u malaynayaa marka inaan idinla wadaagay arrintii aan jeclaa inaan suubiyo oo ah inaan afkaarta geliyo socod dareemo ka fikiro mafhuum ka qaato tajrubeeyo yoolka laga leeyahayna ma aha un in la fikiro oo la hadle waa in ficilka la suubinayo uu sarbeebaa laga dhadhansadaa lagala soo dhex baxaa istinbaad waxaa carabiga lagu dhaho inay yihiin waxaan wax laga fikray laga fiirsaday aqoon salka ku haya iyo arrinta ugu weyn oo rabo mar labaad inaan wadaago ah markaas afkaarta markii dhaqdhaqaaq la geliyo la dareemo markaas waxaa awood loo heli karaa in gacanta lagu dhigo xoog ma aha marka waa farsamo laakiin marka ficilka afkaarta la howlgelinayo waxay u baahan tahay xoog iyo farsamo markale aad u mahadsantiin